توسا ربي أسجود بريا ربي أسجود ركوعا ربي أسجود بريا ربي أركوع أسجودا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. walaalayaal muxaadarada ku saabsan qabiilka iyo qabyaaladda insha Allah waxaan ka hadli doonaa dhowr qodob oo isdaba joog ah oo muxaadaradu ay ka kooban tahay. marka hore bilowga mawduuca waxaan ka hadli doonaa hordhac yar hordhacaas oo ka kooban waxyaabo xaqiiqooyin ah oo jira oo waaqicna ku saabsan. insha Allah waxaan kaloo wax yar ka hadli doonaa oo qodobka labaad uu noqon doonaa sida diinta islaamku ay u cayday waxa la yiraahdo qabyaaladda. waxaan kale oo wax yar ka hadli doonaa oo qodobka saddexaad ah qofka shakhsiga ah qabiilku dhibka uu u keeno inuu qabyaalad qofku uu ku dhaqmo ama uu ku dhex noolaado mujtamac iyo bulsho qabyaalad ku dhaqmaysa dhibka ay qofka u keento. waxaan kaloo ka hadli doonaa insha Allah mujtamaca laftirkiisa qabyaaladdu dhibka ay u keento iyo bunaanad muxaadarada dhamaystir u ah. ikhwaani waxa la yiraahdaa qabiilka iyo qabyaaladda marka aan kala saaro ama aan qeexno qabiilka waxaa laga wadaa si qofku uu fahmo marka hore waxaa qabiil laga wadaa in qofku uu leeyahay family uu ka dhashay abtirsiyaha qofkan waa inay hebel famil ahaanna waa familkaas waana arki doonaa sida sharcigu uu isticmaalo. qabyaaladana waxaa la yiraahdaa qabiilkii ilaahay naga abuuray oo si khaldan loo isticmaalo waxayna arrintaasi la mid noqon doontaa oon arki doonaa inay la mid tahay daawo si aan loogu talagelin oo dhakhtarku uusan ugu talagelin aad u isticmaashay oo dhib weyn uu ka imaanayo. ikhwaani waxa la yiraahdo qabiilka oo si xun loo isticmaalo maanta dadka dhexdiisa wuu ku batay heer waxaa la gaaray cunugii yaraa oo hadda dhashay qabiil lagu koriyo oo cunugii qabaa'ishii iyo qabiiladii Soomaaliyeed ay ugu kala jiraan laba khaanadood qolo asaga ciddiisii ah iyo qolo ciddiisa saaxiib la ah iyo qolo cadow u ah ciddiisa oo cunug yaraa u yaqaano. ninka dhalinyarada ahaa dhalinyaranimadiisii waxay ku dhisan tahay qabiil odaygiina wuxuu ku dulbaaba'ay qabiil. waxaa jira sheeko dhacday oo waaqici ah oo cajiib ah oo markaad waaqiceenna ka turjumaysa. cunug yar oo aad u yar baa dhumay reer buu ka dhumay cunugii marka suuqa laga helay cunugii oo soo dhumay oo meel aan garanaynin markaasaa oday Soomaaliyeed loo geeyay. cunugii waxaa la yiri adeer magaca hebel lama yaqaan marka ma garanayaan markaasaa waxaa lagu yiri war cunugan aan qabiil ku raadinay si kale uma garanayne adeer cidda tahay markaasuu wuxuu sheegay jilibkii ciddiisa ugu hooseysay oo yar wax garanaya ma jiraan. markaasee waxaa la yidhi si kale ma garan karee qabiilka waaweyn aan sheegnay saali adeer ma reer hebel baa tahay markaasuu maya kuwaas weligay ma maqal ma reer hebel baa tahay weligay ma maqal ma reer hebel baa tahay ciddiisii xataa ma yaqaano kore weligay ma maqal cid baa la sheegay ma reer hebel baa tahay maya kuwaas col baanay maba is arki karraba. markaas waxay dhaheen haye reer hebel yaa col ah reer hebel ha loo geeyo waa reer hebel markaasaa la gartay fiil cunugeennii yarka ah xataa wuu ku barbaarayaa waxaa lagu korinayaa lagu anqarinayaa noocaas. waxyaabaha xaqaa'iqda waxaa ka mid ah dad badani in ay gaareen maanta inay ku faanaan anigu reer hebel baan ahay isagoo ilaahay ugu talagalay
in dadka lagu kala garto oo kaliya la yiraahdo qofkani dadkaasuu ka dhashay oo waa familkaas kanna waa familka iyagoon wax farqi u dhaxayn oo qofkii marka xataa leeyahay ruuxan waa qabyaalada iska daa inuu leeyahay maya waxaan saanay ahaan jirtay taariikhdu saanay ahayd hadda gadaal wixii lagama burburin karo waxaan waa wax dhaqan oo tradition oo soo jiray waxaan moodaa dadkaas waxaa ku rumoobaysa hadalka ilaahay uu leeyahay wa idaa qiila lahum ittabicuu maa anzala allah qaaluu bal nattabicu maa alfaynaa calayhi aabaa'ana awalow kaana aabaa'uhum laa yacqiluuna shay-an walaa yahtaduun haddii lagu yidhaahdo war raaca wixii ilaahay sheegay oo qabiilka sidii ilaahay ugu talagalay ugu dhaqma oo u fiiriya oo u garta si khaldan ha u isticmaalina wuxuu qofku ku leeyahay anigu waxaan raacayaa wixii aan aabbayaashay ka soo gaaray aabbaha hadduu ahaa mid aan waxba ogeyn oo haddana jaahil ah oo si khaldan wax u isticmaalay ma khaladkii baad ku raacaysaa hadal waxaan idin xusuusinayaa uu nin shaacir uu yidhi oo cajiib ah nin gabayaa ah oo muslim ah wuxuu leeyahay أيها الفاخر سهلا بالنسب إنما الناس لأم ولأب هذا كان في ريا قفك كفانا يا نسبك يا قبيلك ترتيب سو وركادي ضدك أو يعني وحاد له يا أبو قف كستا وكذا حلية